بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ولا ليال وحين كورمدنا قصة ذو القرنين. ذو القرنين وكما ذو القرنين wuxuu ahaa nin boqora oo Allah subhanahu wa ta'ala uu kaga waramay suurada 18 ee Kahfi. qisadiisuna waxa ay ku timi sabab nusulka loo soo dajiyayna waxay ahayd gaaladii reer Quraysheed ayaa u tagay Yahuuda waxayna weydiiyeen Muhammad maxaan ka yeelnaa oo aan ku jarribnaa. kadibna waxay dhaheen waxaad weydiisaan 3 qiso. waxay ahayd midi in ay weydiiyaan ninka dhulka meeray ee Dhulqarnayn qisadiisa ayay weydiiyeen. sidoo kale waxay weydiiyeen asxaabul kahfi dhalinyaradii la waayay iyo ruuxdu waxa ay tahay. 3daas su'aalood ayay weydiiyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam. Allah waxa uu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa yasalunaka 'an dhilqarnayn, waxay ku warsanayaan oo ku weydiinayaan Dhulqarnayn arrinkiisii ayay ku weydiinayaan. waxaad ku tiraahdaa qul sa'atlu alaykum minhu dhikra, war isaga ku saabsiisan ayaan idinka warrami ku dheh. Dhulqarnayn waayo magaciisan xaguu ka yimid. Dhulqarnayn waxa uu ahaa nin boqor ah oo caabid ah oo nin daaciya oo diinta Ilaahay faafiya ayuu ahaa. magaciisa waa la isku khilaafay. qola waxay tiri Dhulqarnayn waxa loogu bixiyay madaxiisa ayuu ku lahaa 2 gees, 2 qarnayn ayuu ku lahaa, sida aawadeed ayaa lagu bixiyay Dhulqarnayn. qolo kale waxay tiri may waxa loogu bixiyay Dhulqarnayn 2 qarni ayuu noolaa. qarni waxa looga jeedaa 2 qarni. marka 2 qarni maadaama uu noolaa ayaa loo bixiyay Dhulqarnayn, ninkii 2 qarni noolaa. qolo kale waxay tiri may waxa loogu bixiyay Dhulqarnayn maadaama uu xukumay oo uu ahaa nin boqor oo awood uu Ilaahay siiyay oo uu xukumay bari iyo galbeedba ayaa loogu bixiyay Dhulqarnayn. ninkii xukumay 2 qarni waxa looga jeedaa bari iyo galbeedba ninkii xukumay. ninka kan Allah waxa uu leeyahay subhanahu wa ta'ala waxaan siinay namakanna lahu fil ard wa aataynahu min kulli shay'in sababa. waxa aan makan siinay dhulka oo waxaan ku manaysanay cilmi iyo xikmad ayaa lagu manaystay boqorka kan ninkan caadilka ah. markuu Allah subhanahu wa ta'ala cilmiga uu siiyay isaguna wuu adeegsaday inuu diinta eebba ku faafiyo. wuxuu tagay adduunyada oo dhan ayuu meeray, meel walba wuu tagay. laakiin Allah subhanahu wa ta'ala 3 safar oo uu ninkani baxay ayuu inooga warramay quraankiisa. waxa uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala fa atba'a sababa, wuxuu raacay sababtii ayuu raacay. macnaheedu waxa weeye cilmigii la siiyay ayuu ayuu dhaqan geliyay. cilmi wuuna u diyaar garoobay. markuu cilmigii uu helay awoodiina uu Allah u siiyay subhanahu wa ta'ala waa u diyaar garoobay inuu diinta tan uu fidiyo. safarkiisii hore waxa uu quraanku ka warramay waxa weeye safarku ugu kicitimay bariga galbeedka, meesha ugu galbeedsan degmadii uu deganaa meesha ugu galbeedsan ee ay qorraxdu ka dhacdo ayuu u safray. Allah waxa uu leeyahay subhanahu wa ta'ala hatta idha balagha maghrib ash-shams, markuu gaadhay meesha ugu shisheysay maghrib ugu galbeedsanayd ee ay qorrax ka dhacdo, meesha isaga degmadii uu deganaa meeshii ugu shisheysay ee ugu xigtay galbeed ee ay qorraxdu ka sii dhacdo, halka markuu gaadhay ayuu wajadaha taghrubu fi 'aynin hami'ah. wuxuu qorraxdii ka helay taghrubu fi 'aynin hami'ah ayada oo ay ku sii dhacayso meel il hami'ah. hami'ah waxa looga jeedaa waa meel dhooba ah. matalan dhulka saxaraha oo kale marka uu roobku uu helo, roobkaasi marka uu helo dhiiri ayay noqotaa meeshu. kadib biyuhu marka ay guraan ee qorraxdii kululaato ay biyihii guraan, dhoobadaas ama dhiirigaas wuxuu isu bedelaa meel qallalan oo dhoobadu way qarqaraxda. meeshaas dildilaaca leh ayuu ka helay qorraxdii. marka halka kan wajadaha kelmadda macnaheedu wajadaha wuu helay
macnaheedu wuu helay wajadaha dhowr macnayaal ayay leedahay walidaalika mustashriqiinta diinta islaamka wax ka sheega waxay leeyihiin qur-aanku wuxuu ka hor imanayaa sayniska oo waxa uu leeyahay qoraxdii waxay ku dhacday oo ay ku dhacda oo ku galbeedsataa meel ama il meel dhooba ah god ayay gashaa sidaas oo kale weeye laakiin waynan fahmin qur-aanka kariimka maysan fahmin oo kelmadda wajadaha macnaheedu waxa weeye way ula eekaatay macnahana luuqada carabida way ku noqotaa oo wajadaha waxay ula eekaatay dhulqarnayni qoraxdii waxay ula eekaatay sidii mid kusii dhacaysa god ama ishaas meesha dhoobada ah kusii dhacaysa ayay ula eekaatay subxaanallah meesha markii uu tegay wawajada cindaha qawman qoom ayuu ka helay marka qoom meeshii dad buu ugu tegay marka dadka uu ugu tegay ayuu eebba waxa uu amray qulna ya dha alqarnayni allah waxa uu ku yidhi subxaana watacaala ya dha alqarnayni dulqarnaynow ima an tucadiba wa ima an tattakhida fiihim xusna waa inaad cadaabtaa oo aad cadibtaa qoomka kan ama aad ka yeelataa wanaag waxa uu allah subxaana watacaala uu faray dulqarnayn in uu qolada tan kuwii gaaleed ee diinta tawxiidka ka hor yimaada in la cadibo kow qaybta kalena waa inuu isagana u wanaag falaa qaala ama man dalama fasawfa nucadibuh waxa uu yidhi kuwa dulmiga naftooda dulmiya ee diinta tawxiidka diida fasawfa nucadibuh waan cadaabaynaa kuwa thumma yuraddu ilaa rabbih kadibna waxaa loo celin doonaa rabbigii waa maalinta qiyaamee fayucadibuhu cadaaban nukra cadaab daran ayuu eebbana cadaabi doonaa waa gaalada وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى لكن كآمني آمني كلمة وآمني الدين التوحيد كراعي وعمل وناكسن ليمي فله جزاء الحسنى أبال وناكسن أيو بكليي كاسي وسنقول له من أمرنا يسرا أرنك يغنى waxaan u yeelaynaa mid fudud ayaan uga dhigaynaa arrinkayaga marka kan wanaagsan maadaama uu dulqarnayn uu ahaa nin boqora oo awood leh oo allah leeyahay annaga ayaa makan siinay oo awoodda tan siinay wuxuu uu awood u haystay ama qudradda ah inuu ciddii diida diinta tanna uu cadaabo oo uu cadibo ciddii yeeshay diinta tawxiidkana uu soo dhaweeyo oo arrinkiisa u fudaydiyo marka dulqarnayn wuxuu ogaa in labada marka uu qoomkan u tago inay labada qaybood noqonayaan kuwa yeela iyo kuwa diida kuwa yeelayna arrinkiisa waa loo hagaajinayaa aakhirana abaalgud wanaagsan ayay leeyihiin kuwii diidana waa la cadibayaa oo adduunyada ayaan ku cadibaynaa aakhirana waxay ku noqonayaan walciyaadu billah ilaahay bay u tegayaan eebbana waa cadibayaa cadaab aada u daran safarkaasi waa safarkii ugu kicitimay galbeed degmadii uu ka tegay meeshii ugu galbeedsanayd safar kale ayuu u baxay dhulqarnayn thumma atbaca sababa haddana waxa uu raacay sababtii ayuu raacay oo wuxuu la yimi sababtii ama wuxuu la yimi cilmigii iyo awoodii iyo diyaargarowgii looga baahnaa ayuu la yimi ee uu ku tegayay safarka kale uu ugu baxayay safarkii kale markii uu baxay wuxuu tegay bari markii hore galbeed buu joogay iminka bari ayuu tegay xataa ida balaga markuu gaadhay matlica shamsi meesha qoraxdu kasoo baxdo wajadaha tadlu calaa qawmin lam najcal lahum min duniha sitra halkaa meeshaas bari ugu xigta ee ay qoraxdu ay kasoo baxdo halkaa marka uu gaadhay ayaa wuxuu ka helay yagiina meeshaas wuxuu ka helay qoom lam najcal lahum min duniha sitra aan la yeelin sukodooda asturaad aan la yeelin macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye dadka qoomka uu halkaa ugu tegay waxay ahaayeen dad badow ah dad cawaan ah oo aan maryo qabin oo aan maryo fiican sidanin oon asturnayn ayay ahaayeen ama waxay ahaayeen qoom aan ka asturnayn qoraxda aan ka asturnayn oo guryaha ay ku jiraan guryo saqaf sare leh aan lahayn oo waxay ahaayeen dad badow ah oo kaymaha iyo dhulka ku nool oo aan maryo qabin ayay ahaayeen qoomkaas ayuu halkaa ugu tegay way aayadiyada sii socota eebba ma uusan sii fasirin halka kan oo waxa uu yidhi oo kusoo gaabiyey kadaalika sidaas
واسداس أيو آياتي كوبي ساقاشنادي كحكتين وحاو ليهي كذلك سداس ومحا لوغا جيدا وحاو إيبا اوغا جيدا ذو القرنين وحو قوم كان اوكو سمية سيدي قوم كي هورا وحي اوكو سمية وكالا وقوم كي هورا وحا اوكو سمية كوي قالوا بينا والعدب إيبانا ويكون نقدين eebana way ku noqonayaan maalinta qiyaamay isaguna uu cadibaya cadaab daran ma in kuwa mu'miniinta ay isaga rumeeyay diinta tawxiidka qaateena arrinkooda wuu u fudaydinaya eebana waxay u noqonayaan maalinta qiyaamo oo abaalgud wanaagsan ay ku yeelayeen marka eeba subhanahu wa ta'ala wa mu'jisooyinka quraanka wuu soo koobay qisadaas oo dhan oo mar labaad muusan soo celinin ee waxa uu yiri kadalika waa sidaas sidii qoomkii hore uu ku sameeyay oo kale ayuu kuwana ku sameeyay subhanallah thumma atba'a sababa hadana wuxuu raacay sababtii cilmigii buu la yimi awoodii buu la yimi diyaar garowgii buu la yimi marka safar kale ayuu hadana baxay safarkiin kale markuu baxay wuxuu ku tagay hatta ida balagha bayna sadayni wuxuu gaaray laba buurood dhexdood meeshaas marka uu tagay وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا wuxuu ka helay sukadooda ama hortooda meeshaas intaanu labada buurood aanu tagin wuxuu helay qoom aan luqad fahmaynin afba ma fahmayaan la yakaduna yafqahuna qawla kuma dhawaba in ay hadal fahmaan ba luqad ay ku hadlayaan lama garanayo afkooda lama garanayo cid turjintana lama garanayo marka qoomka kan ayagana maadaama uu dhul qarnayn uu Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala waxaan siinay oo man kan siinay cilmi buu lahaa cilmigana waxa kamid ah inuu luqadaha meelaha uu safarka ugu kicitimay oo dhan luqadahooda uu fahmayay marka qoomkan markuu tagay luqadooda lama fahmayninba subhanallah marka si ay ahaataba hadana way la hadleen qoomkan iyo si bay ula hadleen ama afka dhagoliska ha kula hadlaan ama cid kale oo turjunta ha ula hadasho ee way la hadleen dul qarnayno oo waxay ku dhaheen qalu ya dal qarnayni dul qarnayno inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi labada qoom ee la dhaho ya'juj iyo ma'juj waa laba qoom oo kamid ah bani adam waxay ka soo farcameen nabi adam iyo nabi nuux waa dhashi nabi adam iyo nabi nuux laakiin waa laba qoom oo dhaxariis daran oo aan naxariis lagu ogeyn mufsiduna fil ardi dhulka fasahaadinaya marka qoomkani waxay ka caawdeen ya'juj iyo ma'juj labadan qabiil ayay ka caawdeen oo caruurtooda laayay oo dumarkooda kufsaday oo xoolahooda dhacay ayay ka caawdeen marka wax iyagoo ka cabanaya ay waxay ku leeyihiin dul qarnayno fahal naj'alu laka kharujan an mushahar ku siin an lacag ku siin an ujuro ku siin ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda si aad nooga yeeshid annaga iyo iyaga dhexdooda sad aad uga yeeshid xidheen gidaar xidheen ah oo aanay nooga soo dhicin oo aanay xoolaha iyaga u qaadan oo dadkayga u dilin oo aanay noogu xadgudbin gidaar noo dhaxeeya annaga noo samee qoomka kan waxoogaa nacasnimo ah ayaa ku jirtay sababtoo ah waxay leeyihiin lacag baan ku siinaynaa ee adigu naga difaac maysan oranin aan wada difaacno oo mushaharka iyo qarashka baxaya annaga bixinayna ee annaguna waan idinla difaacayna laakiin waxay kaalmo ay ka dalbadeen dul qarnayn subhanallah marka dul qarnayn wuxuu doonay in uu baro cilmi aad u weyn lacagta tan aad haysataan waxa uu yiri qala ma makani fihi rabbi wuxuu eeba imakansiiyay oo wisiiyay ayaa iga khayr badan idin uma baahnin qarashkiina uma baahnin anu marka horeba nin daaciyabanaha nin caabidabanaha oo dhulka waxaan u imi inaan diinta ilaahay faafiyo boqorka niga xooga weyn la weeye marka subhanallah waxa uu diiday lacagtoodii iyo qarashkoodii sida ay nabiyadu ay u diideen oo ay u lahaayeen la asalukum alayhi ajra nabiyadu dhamaantood ay lahaayeen ajar iyo lacag iyo xoolo idima weydiisanin magac iyo hantina idinka ma baahnin wax khayr la ayaa la idin siinaya oo khayr baan idinku baaqaynaa sharna waan idinka digaynaa marka maadaama uu daaci ahaa waxa uu yiri xoolihiina ma baahni laakiin wuxuu baray cilmi ah in aanu keligii isagu shaqaynin oo ayagu ay shaqada ka qayb noqdaan waxa uu yiri fa'ainuni biquwwa igu caawiya awood kasoo qayb gala marka aj'al baynakum wa baynahum radma an kayeelo labadiina dhexdiina
baynakum wa baynahum radman labadiina dhexdiina aan idinka yeelo sad ama xidheen ama gidaar ama derbiga weyn ee idin dhexeeya aan idin yeelo markaa idima soo gudbi doonaane markaa caawiya ayuu yidhi aatuni waxaad ii keentaan zubar alxadiid macdanta xadiida la dhaho iyadoo oo qayba ah ii keena goosima ah qayb ii keena marka macdantan ayuu dalbaday subxaan allah macdanta xadiida ahna waxaan ognahay marka guryaha la dhisayo xataa al'aan marka guryaha la dhisayo macdanta waxba lagu khaldaa ama sibir baa lagu khaldaa ama waxa lagu khaldaa dhagax baa lagu daraa ama macdano kale ayaa lagu daraa laakiin iyada oo sideeda ah guriga lagama sameeyo marka waa macdan aad iyo aad u qaaliya iyadoo sideeda ahna guriga lagamaba dhisaba marka laakiin dhulqarnayn waxa uu dalbaday xadiid feeroon ama iron keena buu yidhi subxaan allah waa la keenay buurtii bay kasoo qodeen macdantii xadiida ahayd qayb ayuu ka dhigay marka qaybihii uu ka dhigay wuxuu u dhaxaysiiyey loox buu halkan dhigay wuxuu ku shubay birtii xadiida ahayd halkan uu loox kala dhigay birtii xadiida ahayd buu ku shubay xataa idaa saawa bayna sadafayn ilaa uu la simay siduu isu dul saarsaarayay birtii xadiida ahayd siduu isu dul saarsaarayay ilaa uu la simay labadii buurood dhexdoodii gidaarkii uu la simay labadii buurood markii uu la simay halkaas ayuu wuxuu yihi qalanfukhu shida iminka oo afuuf maxaa la afuufaya looxyadii u dhaxeeyey birta xadiida ee uu dhexgeliyay hala shido sababta uu shidayo waxa weeye looxa marka la gubo isaguu maranaya laakiin waxa kale uu gubayaa birtii xadiida ahayd marka birtii way dhalaalaysaa markay dhalaasho way isku imaanaysaa kadibna waxay noqonaysaa bir adag oo aan cidina dhaafi karayn subxaan allah halkaas markuu miri qalanfukhu shida oo afuufo xataa idaa jacalahu naaran markay naar ka dhigeen oo ay olashay birtii ayuu haddana waxa uu yidhi qaala aatuni ii keena ayuu haddana yidhi ufriq calayhi qitra macdan kale ayuu keenasaday macdanta kale waa maxay waa naxaas buu haddana haystay dabkii markii la shiday oo birtii xadiid ahayd ay dhalaashay looxiina uu gubtay oo meeshii uu ka baxay oo birtii xadiid ahayd ay ololayso ayuu haddana dusha waxau kaga keenay macdan kale oo ah birtan naxaasta ah subxaan allah markaa sadkii sidaas ayuu u xidhay sidaas ayaanu uga dhigay bir xadiid xagga hoose ka ah xagga saree naxaaska ah oo aanay ya'juuj iyo ma'juuj kasoo bixi karaynin kumana dhowaanin in ay kasoo baxaan fama istaطaacuu an yadharuuhu wama istaطaacuu lahu naqba uma baysan dhowaan in ay kasoo baxaan meeshaas markaas ayuu waxa uu yidhi dhulqarnayn qaala hada raxmatu min rabbi awooddaas laba buurood dhexdooda uu birtaa dhan uu ku awday ay waxa uu u nisbeeyey muusan odhanin cilmigayga iyo falsafadeyda iyo caqligayga ayaan ka keenay ee waxa uu yihi raxmatu min rabbi waa naxariis xagga eebba ka timi allah faidaa jaa wacdu rabbii jacalahu dakkaa marka uu yimaado wacdiga rabbigay xilliga uu allah uu doono in uu burburiyo marka uu yimaado jacalahu dakkaa wuxuu ka dhigayaa mid burbursan uu dumin wakana wacdu rabbi xaqaa halkaas wacdiga rabbigayna waa mid xaq ah weeye ya'juuj iyo ma'juujna subxaan allah halkaas ayay galeen ilaa ay kasoo bixi doonaan marka qiyaamuhu dhow yahay markaas ayay kasoo bixi doonaan qisada ya'juuj iyo ma'juujna waxaan kaga warramnay insha allahu tacaala qisooyinka hore ayaanu kasoo warramnay insha allahu tacaala halkaas ayaana saddexdaa safar ee waaweyn ee uu dhulqarnayn uu maray ayuu allah subxaanahu watacaala inooga warramay safarka uu ku tegay meesha bariga safarkan uu ku tegay galbeedka iyo safarkan uu ku tegay ya'juuj iyo ma'juuj uu kusoo awday halkaas ayaa safaradiisii waa allah uu kaga warramay kuwii ugu waaweynaa wallahu aclam wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu